السلام عليكم. دونيدان waxaa ku nool qof 24 saac hela lacag 200 milyan oo dollar ka badan halka ay jiraan dawlado uu dhaqaalahoodu intaas ka yar yahay. sidoo kale dawlado badan oo caalamka saameyn weyn ku leh ayuu ka hanti badan yahay. xafiiskaas yar ninka fadhiya waa Jeff Bezos. sawirkana waxaa la qaaday sanadkii 1998 waa xafiiskii maamulka ee shirkadda Amazon. Jeff sanadkii 1994 ayuu aasaasay shirkadda Amazon. lacagta uu ku aasaasay waxa ay ahayd $300,000 oo uu waalidkiis ka soo amaahday. maanta Jeff waa hantiilaha ugu hodansan dunida waqtigan, waana hantiilihii ugu horreeyay taariikhda casriga ah inta la og yahay ay hantidiisu gaarto lacag 100 bilyan dhan. lacagtiisu waxa ay dhan tahay 131 bilyan sida ay Forbes sheegtay. hantidiisu waxa ay gaartay 150 bilyan, balse waxa ay kala tageen xaaskiisii, taasoo sababtay in 25% hantidiisa ay iyadu qaadato, maadaama uu heshiiskoodii hore ahaa in ay hantida wada leeyihiin balse ay iyadu inta kale u daysay. xaaskii ay kala tageen maanta waa haweeneyda afraad ee caalamka ugu hodansan. Jeff waxa uu ka hanti badan yahay qoyska boqortooyada Britain. hantida qoyskaasi waa 88 bilyan oo dollar, halka isaga ay 100 bilyan hantidiisu dhaafayso. sidoo kale waxa uu ka dhaqaale badan yahay dalal badan oo caalamka ah, waxaana ka mid ah Kenya, Ethiopia, Slovakia, Oman, Lebanon iyo dalal kale. wadamada Costa Rica, Afghanistan iyo Iceland oo la isku daray dhaqaalahooda waxaa ka badan hantida uu Jeff haysto oo qura. hantiilahaasi mushaarkiisu waa $81,000 sanadkii, waana lacag ka yar inta ay qaataan xildhibaanada Mareykanku sanadkii. halkii ilbiriqsi waxa uu helaa $2,489. halkii daqiiqo waa lacag $150,000 ku dhow. waxa uu 24 saac faa'iidaa $215 milyan. haddii uu maalinkii isticmaalo ama qarash gareeyo $1 milyan si ay lacagtiisu u dhammaato, waxa ay qaadanaysaa ku dhowaad 400 oo sannadood. gudaha Mareykanka, qofka nolosha caadiga ah ee wanaagsan ku nool waxa uu helaa $97,000 sanadkii. qofkaasi hantidiisa $1 hadduu qarash gareeyo, Jeff 1.1 milyan ayuu qarash gareeyaa. markaa way isku dheelitiran yihiin. sidoo kale qofka wax bartay ee haysta shahaadada digriiga koowaad gudaha Mareykanka inta uu nool yahay waxa uu shaqeeyaa lacag dhan $2 milyan, halka Jeff Bezos ay ku qaadanayso 15 daqiiqo wax ka yar in uu helo $2 milyan. sidaas oo ay tahay, sanadkan waxa uu lumiyay ama qasaariyay lacag $20 bilyan ku dhow. sidoo kalena $35 bilyan oo kale xaaskiisii uu furay ayaa qaadatay. shirkadiisa Amazon maanta waa tan ugu weyn caalamka ee ka shaqeysa online shoppingka, waana midda ugu dhaqaalaha badan. sidoo kale Amazon waa shirkad ka mid ah shirkadaha saddexda ah ee qiimahoodu gaaray $1 trilyan. aqoonyahankii Peter Drucker waxa uu yiri, meel kastood ku aragtid ganacsi guulaystay, qof baa mar sameeyay go'aan geesinimo leh. haddii loo samro ganacsi kasta oo yaraan lagu bilaabo, uu aakhirka noqdaa mid guulaysta. balse ka annaga Soomaali ahaan dulqaad uma lihin in aan sugno waqti dheer waxa aan samaynayno miro dhalkooda. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. la wadaag asxaabtaada.